sida la wada soconno raggu in badan fikirkiisa iyo maamkiisu waxa weeye jinsiga loo yaqaan dumarka waxaana taa keenay baahida Ilaahay uu isku abuuray ee mid walba ku jirta hase yeeshee waxaa la yiraahdaa fikirka ay dumarku ka fakaraan rag oo maskaxdooda iyo maamkooda ku soo celceliyaan oo raadiyaan wuu ka yar yahay midka raggu ay sameeyaan dhowr arrimood baa idin soo bandhigaya dhowrka arrimood oo nin ku fakaro ama maskaxdiisa marka ugu horeysaba ku soo dhacda marka xaaskiisa uu arko oo qabta dharkii hurdada yaa salaam nolosha qoyska ama labada isqaba ay nool yihiin ma ahan nolol gumaysi ama is-adoonsi ma ahan ee waa nolol wadaag iyo naxariis ah waxay kugu riixaysaa nolosha qoysnimada ama nolosha ka dhaxaysa labada qof ama qof nolosha kula wadaaga markaad heshid arrintaasi waxay kugu riixaysaa inaad ka fakartid arrimo badan oo aad isweydiisid su'aalo aad iyo aad u tiro badan marka dabci baad u yeelanaysaa oo ceeb ma ahan su'aalahaas inay maskaxdaada ku soo noqdaan in badan oo ay ku soo wareegaan maskaxdaada iyo madaxaada mar allaale markaad aragtid xaaskaada qiimaha lahayd oo qabta dharkii hurdada iyo jiifka maskaxdaada waxyaalo badan oo kala duwan ayaa ku soo dhacaya walow markaasba mashquul aad ahaatide marka qof yahay ninkaada markuu arrimahaas kugu arko dharkii hurdada iyo jiifka adoo qaba aad u ku arko maskaxdiisa waxa ku soo dhacay ugu horeeya ee ku wareega ma doonaysaa inaad ogaatid markaad hortiisa ka soo muuqatid adoo qaba dharkii hurdada ama jiifka insha Allah tacaala waxaan idin soo bandhigaynaa arrintaasi arrimo ku saabsan oo ah waxa qarsoon ee qalbigiisa markaa ku soo dhacaya ninkaada dareemihiisana ku soo duxaya markaad hortiisa ka dhaqdhaqaaqdid adoo dharkii hurdada xiran ama jiifka nolosha wadaagga ee qoyska xaaladaha soo wajahaya noloshooda in wax la iska weydiiyo la xalliyo oo su'aal laga weydiiyo dadka ama ayagu ay weydiiyaan ama loo soo bandhigo macluumaad arrinta ku saabsan ceeb ma ahan mana ahan waxyaalaha laga yaxyaxo laana nolosheenni iyo xayaatadeenni wax joogto ku ah way muhiim weeye marka waxyaalaha muhiimka noo ah inaynu ogaano si aynu ugu noolaano nolol isfahan oo horu socod leh oo aan dib u laabanayn maxaa keenay dadkeena iyo qoysaskeena inay dib u socdaan ama hariya hamayn iscayrsi iyo buuq ay ku jiraan daawada waxay ka raadiyaan wadadeedii meel aan ahayn marka haweeney waxa la rabaa inaad u fakartid si caqli ah oo ninkaadu markuu kugu arko dharkii hurdada iyo jiifka adoo qaba wuxuu isku dayayaa inuusan muujin xamaasadiisa uu ku qabo ayuu isku dayayaa gaar ahaan markuu shaqo gacanta ku hayo ama arrin uu samaynayo marka uu iska leexinayaa inuu muujiyo wax xamaasada ama baahi inuu ku qabo markuu ku arko adoo dharkii jiifka qaba hortiisana maraya wuxuu in badan isku dayaa inuusan waxba isdareensiin wuxuu iska dhigayaa waxa uu u jeeday oo arkayo inay tahay arrin iska caadi ah agtiisa wuxuuna muujinayaa dareemayaashiisa inuu xajiyo oo ka xoog badnaado inuu awood u leeyahay marka adaa la rabaa haweenayahay waqtiga ama xaaladda noocaasa inaad si maskixiina u fakartid markaad xiratid dharkii hurdada ama dharkii jiifka ninka wuxuu dareemayaa inaysan ceeb ahayn inuu ku soo fiiriyo oo quruxdaada iyo muuqaalkaada quruxsan oo ku raaxaysto ama uu ku farxo oo ku dulmuusoodo taasi ceeb u arki mayo wuxuu marka isku dayayaa arrin caadi ah oo dhaqana inay tahay iska caadiya nolosha ka mid ah adaa marka la rabaa dareenkiisa gudaha ku jira ee uu ka qarinaya inaad dibadda u soo saartid si caqliina aad u wajahdid ninkaadu markuu ku arko adoo dharkii hurdada qaba wax walba oo qalbigiisa ku jira horta waa hilmaamaya si degdeg ah oo lama filaana weliba mar allaala markuu ku arko adoo dharkii hurdada ama dharkii jiifka ku seexan lahayd qaba hortiisana laafiyoonaya wax allaala waxa qalbigiisa ku jiro dhan waa hilmaamaya horta murugaha haysato waxyaalaha kale ka fakarayay xataa hadduu naakale ka fakarayay waxaasoo maskaxda ka baxaya wax walba wuu hilmaamaya oo ka fakarayay ee markii hore maskaxdiisa uu ku jaangoynayay nashaadkiisii dhan waa ka tegaya qalbigiisa waxa ku soo dhacaya bas aragtidaada u muuqata wuxuu isku dayayaa in uu awood saaro in xaggaada uu soo fiiriyo asagoo wax tilaabaa qaadin adaa markaa inaad baraarugsan tahay oo inuu ninkaadu xaggaada u jeedo inaad fahanti la rabo waxaa la yidhahdaa shay ka macaan ma jiro xiriirka deggan ee quruxsan ee ka dhexeeya adiga iyo ninkaada xaaladdaas marka xaaladdaas bannaankaa la raba adiga inaad u soo saartid oo aad wajahdid sababtoo aad ragga iyo dumarku isku fakar ma ahan isku dareemana ma ahan ninkaadu markuu arko adoo dharkii hurdada ama jiifka qaba waxaa niyaddiisa ku soo dhacayso ee ugu weyn waxa weeye oo ka mid ah
inuu is yiraahdo alleela waxaa tahay nin aad iyo aad u dheef badan oo u nasiib badan wuxuu isdareensiinayaa inuu yahay nin nasiib badan oo uu qabo oo noloshu ay la wadaagayso haweenaydii dunida u quruxsanayd qalbigiisa arrintaas ku soo dhacay waliba xaaska quruxda badan ee uu nasiibka u yeeshay waa mid jecel asaga qalbigiisa arrintaas ku soo warwareegay marka fikirkan ama arrimahan waxay ku soo dhacayaan ninkaada maskaxdiisa markuu kugu arko dharkii hurdada adoo qaba hortiisana dhaqdhaqaaqaya marka haweenayda adaa laga rabaa inaad noqotid mid kalsooni markaasi nafteeda ka haysata ninkeedana siin karta la rabana inaad ninkaada dareensiisid sida uu kula cajabay inaad adna ula cajabtid waxa maskaxdiisa iyo dareemaha ku soo dhacayana aad awood u yeelatin inaad adigu hogaamisid adaa markaa laga rabaa sababtoo ah markaasaad helaysaa sacaadada qoyska ee raadinaysid nolol aan la isdareemayn oo aan la is akhrisanayn looma baahna nolosha qoyska waxaa la rabaa qofba qofka kale wejigiisa inuu akhristo dhaqdhaqaaqiisa inuu fiiriyo socodkiisa iyo tasarrufaadkiisa inuu eegaa la rabaa kaana uu ka dhaliyo nolosha uu kula dhaqmayo qofkaas laakiin nolol iska caadiya haddaad iska dhigtaan oo aan waxba la fiirinayn markii laisku baahdan laisku imaado kadibna la kala cararo carruur dhal uun nayaa xaggay ka dhacday wariyaa xagga u socdaa iyo nolol noocaas hadday tahay nolol liidato weeye nolosha qoysaskeenna soomaalidu ay u badan yihiinna waa nolosha noocaasa ilaahayaas kaga dhiga laba kastoo isqabta kuwa isku ilqabowsada oo mid walba kan kala shashadiisa uusan waxba ka arag ee asaga uu arko inuu yahay dahabka nolosha uu haysto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.